Assalaamu calaykum saaxiibayaal, soo dhawaada meel walbaad caalamka joogtaan. Waa anigoo ah khayra dish. Waa kulankeenii asbuuculaha ahay. Waa qaybtiisii afraad haddii ilaahay idmo. Caawa waxaan kusoo qaadan doonaa falanqaynteena lacaga ay ka mid tahay Audio USD, New Zealand USD, iyo Euro iyo New Zealand. run ahaantii waxaan rajayn doonaa haddii ilaahay idmo inaad ka faa'iidaysan doontaan fursadaha cajiibka ee lacagahan ku jiro. Asbuucan soo socda haddii ilaahay idmo waxaan rajaynayaa in maaragtay dhaqaaq aad u wanaagsan oo sameeyo. Lacago waxay joogaan meelo xasaasiya, structure waxay sameynayaan maaragtay run ahaantii aad u cajiib ah. Marka waxaan rajaynaynaa asbuucan inuu noqdo asbuuc maaragtay volatility oo maaragtay suuqa maaragtay aan si fiican aan maaragtay uga shaqaysano haddii rabbi idmo. Saaxiibayaal, ma rabo inaan ku dheeraado videoga. Haddaan ka bilaabno lacagta ugu horeyso Euro iyo New Zealand. Lacagtan sida aad ujeedaan saaxiibayaal waxa aan joogaa waxa ay tahay haddaan wandheeda hal mar idin tago. Lacagtan saaxiibayaal sida aad wada arkaysaan lacagtan way soo dhacday kadibna waxa ay sameysay correction descending. So lacagtan waa la qaadaa ilaa halkaas in la geeyo macquul waaye, laakiin halkaas intaanan la tegin lacagtan hadda xaaladda ay ku jirto ayaan rabnaa inaan isla fiirino. Lacagtan sida ujeedaan waxa ay sameysay waxa la yiraahdo three touch oo see ah. Waxa ay noo sameysay 1 2 haddana waxaan sugaynaa 3da halkan maaragtay lacagtan inay maaragtay inta noo imaato kadibna lacagtan ay uptrend noo aado ilaa iyo areadaas ay noo tagto haddii ilaahay idmo oo aan ka qabsano bib aad u macquul ah. 4 hourka aan tagno saaxiibayaal. 4 hourka haddaan tagno waxaan arkaysaan wax walba clear ah. Suuqan qaabka halkan ku imaaday ee taa qaab aad u qurux badan. Haddii waxaan sugaynaa haddii ilaahay idmo maaragtay lacagtan in ay halkan imaan doonto saasna maaragtay ay ku aadi doonto uptrend ilaa iyo maaragtay trendkaasna ay noo gaari doonto haddii ilaahay idmo. Marka lacagtan ka faa'iidaysta waxaa ku jirta fursad aad u cajiib ah. Waxaadna ka faa'iidaysan kartaan ilaa iyo 500 bib waaye 500 oo bib waa lacagtan. Marka 500 oo bib ka faa'iidaysta saaxiibayaal waxa ay sameynaysaa run ahaantii wax aad u cajiib ah. lacagta xigta haddaan isla fiirino lacagta xigta waxa waaye New Zealand iyo USD. New Zealand iyo USD maxay sameynaysaa? New Zealand iyo USD waxa ay sameynaysaa New Zealand USD. Horta lacagtan haddii aan tagno wandheeda lacagtan waxa ay sameynaysaa lacagtan qaabka ay ku jirto waa ascending oo ujeedaan waa lacagtan asbuucii hore aan soo dhigay. Lacagtan horta sida aniga u badinayo lacagtan waxaa macquula in halkan la keeno halkan inay imaato waa maaragtay oo wax suurtagal ah oo lacagtan qaabka ay ku dhaqaaqday kadibna correctionkeedii maaragtay xoogaa wuu iska dheeraada. Marka in la soo ay halkan uga laabato waa mid ka suurtooda oo dhici karta, balse intaan taas dheer aan la gaarin sideen uga faa'iidaysanaa hadda jaanisiyada hadda u soo dhow sideen uga faa'iidaysanaa jaanisiyada mustaqbalka dhow biri iyo wixii maaragtay ka dambeeyo asbuucan gudihiisa haddii ilaahay idmo. lacagtan maxay sameynaysaa? lacagtan saaxiibayaal waxay sameynaysaa wax aad u cajiib ah. lacagtan waxa ay sameynaysaa mar walba oo maaragtay dhinacan channel ku tagto lacagtan waa la soo riday. So lacagtan hadda waxay ku jirtaa xaalad aad u cajiib ah. xaaladda aadka u cajiibka waxay tahay lacagtan haddii ay maaragtay xushmayso horta sida ujeedaan lacagtan maxay sameysay asbuuc hadda lasoo dhaafo lacagtan maxaan ka sugaynay? asbuucii lasoo dhaafo haddaa xasuustaan lacagtan waxaan ka sugaynay in ay maaragtay noo imaato halkaas correctionkan meesha maaragtay u dambeysay, balse waxa ay lacagtan ay ka laabatay halkan oo ah run ahaantii meel maaragtay aad u xasaasi ahayd. aniga kuu sheegayo oo ku dhahayo lacagta maaragtay wax walba update ay lacagta ka noqon karaan. waa in maaragtay lacagta waxyaabaha ay lacagta waxaa ku xukumo waxyaabaha ficilada ee markaas lacagtan ay ku dhaqmayso.
aniga lacagtan waxaan kasoo qaatay saaxiibayaal risk intrig halkaasaan lacagta kasoo qaatay waxaana ka faa'iidaystay lacag 70 bib aan ka faa'iidaystay risk intrig aan kasoo qaatay 70 bib aan ka faa'iidaystay waatana halkaasaan kasoo qaatay lacagtan waxay ila imaatay ilaa iyo halkaas ila imaatay ilaa halkaas ilaa halka inay ii imaataan rabay balse ma aysan dhicin halkaas markay imaatay aan arkay inay maaragtay ay reversal sameynayso oo uptrend aadayso waa isaga baxay marka waxaan ka faa'iidaystay adiga 70 ilaa iyo 65 bib meelahaas inay heedaan jeclahay marka lacagtan aniga halkaas koraan kasoo qaatay ilaa halkaasna waa uga baxay waxaan dareemay maaragtay qaab kale inay sameynayso lacagtan marka maxay nagu samaysaa asbuuc lasoo dhaafay asbuuc lasoo dhaafay lacagtan wax kale ma aysan samayn saaxiibayaal waxa ay samaysay lacagtan structure aad u cajiib ah lacagtan waxa ay samaysay xarafka w ama wa saa u taqaaniin okay ha samayso muxumo hadda maxaa ka suurtoodo hadda waxaa ka macquula lacagtan inay samayso in halkan laga soo cesho waayo halkan lagu soo celina halkan waa meel aad xasaasi u ah aan ahayn lacagtan in maaragta halkan ay qaab nashqad noocaas noogu tagto kadibna 1 2 3 nadiif ah noo soo samayso touch noo soo samayso kadibna saas ay noogu soo dhacdo marka haddii halka ay hadda joogto laga soo celiyo lacagtan saaxiibayaal waxaan ka faa'iidaysan doonaa ilaa iyo 150 bib ilaa 150 bib sorry haddii maaragtay halkaas kore loo soo buush gareeyana waxaan ka faa'iidaysan doonaa 200 bib marka mar walba qaabkii maaragtay ay nasiisa ayaan arki doonaa haddii ilaahay idmo marka indhahan ku hayn doonaa marka saaxiibayaal lacagtan saas uga faa'iidaysta haddii ilaahay idmo New Zealand USD sidoo kale lacagtii hore asbuucii aan idin soo dhigay ahayd euro iyo cat waxa aan hadda xasuusataan lacagtaas waxa ay ahayd saaxiibayaal euro iyo cat hamraan idin fiirsho lacagtan halkaan ay taagnay saaxiibayaal halkaan ay taagnay lacagtan hadda xasuustaan waxa ay lacagtan halkaan correction ku imaanaysa ka bacdina uptrend aadaysa ma aysan noqon lacagta impulse nadiif ay ku soo dhacday balse aniga mar walba suuqa banaankan ka taagana haddii maaragta waxa aan ka fila oosan samayn soo lacagtu way soo dhacday structure macaani halkaan naga siisay lacagtan halkaas markay maraysay ayadana waa aan qaatay haddii aan ku tuso caddeynta lacagtan aan ku qaatay saaxiibayaal euro iyo cat watana lacagtan halkaas markay taagneed aan qaatay waxaan saaday ilaa halkaas inay imaan doonto marka waatana waa ujeedin way imaatay double bottomki hadda marka lacagtan ayada naftirkeeda fursad buy ah ku jirto balse aniga lacagta aan idin soo dooro asbuucan waxa ay tahay lacagtan oo ah euro iyo New Zealand oo fursad cajiibka ay ku jirto New Zealand USD oo fursad cajiibka ay ku jirto ayadana audio iyo USD oo ayadana run ahaantii maaragtay la mid ah ama isku structure ay yihiin haddii aad si u fiiriso lacagtan New Zealand iyo USD marka lacagtan ayada maxaan ka filaynaa lacagtan saaxiibayaal waxa aan ka filaynaa audio USD waxaan ka filaynaa structure noocaan ah in maaragta lacagta halkaan laga soo cesho amase aan ahayn in halkaan laga soo cesho lacagtan 1 2 3 inay halkaas saddexda noogu tagto qaab nashqad noocaan ah kadibna ay noo soo dhacdo aan ahayn lacagta in maaragta laga cesho xarafkan sida ay samaysay waaye New Zealand USD oo kale in maaragta qaab nashqad noocaan ah oo kale lagu soo cesho ayadan oo maaragta aan sidaas uga faa'iidaysano marka saaxiibayaal ka faa'iidaysta lacagtan haddii maaragta intaan ay soo dhacdo 120kaas bib haddii maaragta ay halkaas kala tagtana ka faa'iidaysta maxay ahayd oo meeqab waa ayadana waa 190 bib marka 190 bib ayadana ka faa'iidaysta maaragta haddii ay halkaas tagto waa asbuucan lacagahan aan idin soo xulay asbuucan waxaan rajeynaa in ay dhaqaaqi doonaan marka saaxiibayaal indhaha ku haya kana faa'iidaysta haddii ilaahay idmo waxaan rajeynaa maaragta in uu asbuuca soo socdo oo noqdo asbuuc aad u qurux badan run ahaantiina aad ka faa'iidaysataan maaragtay haddii ilaahay idmo dad badan oo ila soo xiriiray saaxiibayaal waxay i weydiiyeen khayrow adiga ma leedahay maaragta wax waqtiyeed ah
oo casharo ma bixisaa signal ma bixisaa waxyaabo noocaas saaxiib yar aniga website malihi signal lama baxsho intaas ma sameeyo kaliya anigu waxaan ahay qof arday ah weli waxaan ahay arday waxaana ka tirsanahay maxadka Darwish Academic intii taqaano maxadkaas ayaan qayb ka ahay waxaan ahay arday ka tirsan maxadkaas marka saaxiib yar website-na malihi signalna ma baxsho balse waxaan kamid ahaa oo qayb aan ka ahay maxadka Darwish Academic asbuuca soo socda waxaan rajaynayaa saaxiib yar inuu noqdo asbuuc aad u qurux badan oo aad ka faa'iideysataan run ahaantii waxaan idin rajaynayaa farxadda qaybaheeda kala duwan waxaan idinkaga tegayaa asbuuc aad u qurux badan saaxiib yar meel walba caalamka joogtaan waa idin salaamaya